salaamullaahi calaykum daawadayaal ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn wararka la yaabka TV. qodobada warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Villa Soomaaliya oo ku mashquulsan iskuna marila shakhsiga loo magacaabayo gudoomiyaha gobolka Banaadir odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye oo dhankooda dadaal adag kala soo horjeeda dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Axmed Madoobe oo wada dadaaladii ugu dambeeyay oo ku afduubanayo doorashada Jubbaland xildhibaanada oo xulintooda la dadajinayo iyo wafuud caalami oo ku wajahan magaaladaasi tilaabada dawladda federaalku xagee ayay maraysaa wararkii ugu dambeeyay waad ku daawan doontaan. xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxay ku guul dareysatay inay qabashto shirkii dib u heshiisiinta ee Galmudug muddo dheeraad ayaa lagu diray wararkii ugu dambeeyay arrimaha maamulka Galmudug oo xilligan gacanta ka sii baxayana waa daawan doontaan. wararka kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya oday waayeel oo laayay 3 caruur oo dhammaantood uu adeer u yahay kuwaas oo ku noolaa gobolka Togdheer ee Soomaaliland. dhacdadaas oo dadka argagax gelisay sida ay u dhacdana waad ku daawan doontaan warkeena. Kenya waxa ay wada dadaaladii ugu dambeeyay ee kaga adkaanayso dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. biyaha Soomaaliyana halis ayay xilligan ku jiraan. wararka dibadda ee warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya Mareykanka oo wajahaya mowjado weeraro isirnacayb oo isdaba jooga iyo toogasho wadareed ka dhacay qaybo ka mid ah dalka iyo xiisada gacanka Beershiya oo mar kale cirka isku shareertay. inta daawadayaal waa qodobada ugu waaweyn wararka la yaabka TV ku soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsan aan ku bilowno. Villa Soomaaliya waxa ay isku khilaafsan tahay isla markaana ay isku marilaadahay cidda loo magacaabayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. wararka qaarkood waxa ay tilmaamayaan in madaxda qaarkood ay wadaan in gudoomiyaha gobolka Banaadir loo magacaabo wiilka injineer Yariisow uu dhalay halka mas'uuliyiinta qaarkoodna ay wadaan in loo magacaabo Salaad Cali Jelle. dhammaan siyaasiyiinta tartanka adag ku jira waxa ay ku hayb yihiin Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. waxay wararka qaarkood tilmaamayaan in lagu kala aragti duwan yahay cidda loo magacaabayo gudoomiyaha gobolka Banaadir. madaxweynaha jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wada sidii uu u soo magacaabi lahaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. beelaha Hawiye ayaa dhankooda waxa ay wadaan guluf adag oo ay kaga hortagayaan in gudoomiye maqaar saar loo magacaabo gobolka Banaadir mar haddii dhawaan dawladdu ay ku lug yeelatay laguna eedeeyay wararkii lagu dilay injineer Yariisow. odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye siiba beesha u badan xilalka gobolka Banaadir ama gudoomiyaha ayaa dadaalkaas wada kuwaas oo shirar kale gadisan ay saacadihii la soo dhaafay uga socdeen magaalada Muqdisho. waxa ay doonayaan in maamul goboleed loo magacaabo ama loo dhiso gobolka Banaadir isla markaana aynan dhicin in dawladdu mar kale ay gudoomiye u soo magacaawdo iyada oo laga faa'iideysanayo xilalka bannaan iyo maqnaashaha maamulkii gobolka Banaadir oo qaarkood ay ku dhinteen qaraxii injineer Yariisow galaaftay. arrimaha doorashooyinka maamul goboleedka Jubbaland waxa ay marayaan meel xasaasi wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Kismaayo waxa ay tilmaamayaan in odayaasha dhaqanka lagu amray in ay dadajiyaan soo xulista xildhibaanada. siyaasiyiin ka qayb gali lahaa doorashada iyo kuwa danaynayay in ay xilal helaan ayaa bilaabay inay iskaga cararaan magaalada kadib markii sida la sheegay ay cabsi geliyeen ciidamo gaar oo magaalada uu ku daadiyay madaxweyne Axmed Madoobe. siyaasiyiinta qaar ayaa soo bandhigaya qorshahooda siyaasadeed kuwaas oo ka mid beelaha ugu tunka weyn deegaanada Jubbaland. madaxweyne Axmed Madoobe ayaa gaashaanka u adkeeyay in dawladda federaalku ay timaado magaalada Kismaayo balse waxa magaalada Kismaayo ku wajahan oo tagaya wakiilka urur goboleedka Bariga Afrika IGAD ugu magacaaban arrimaha Soomaaliya ee wafdi uu hogaaminayo oo wararku ay tilmaamayaan inay qayb ka yihiin mas'uuliyiin ka socota AMISOM. waxa uu danjiruhu doonayaa in uu magaalada Kismaayo geeyo qorshaha aragtida midowga Afrika iyo urur goboleedka Bariga Afrika intaba ee ku aadan in doorashadu ay noqoto mid xor iyo xalaal ku dhacda.
waxay wararku tilmaamayaan in dowladda federaalku ay ka codsatay in xaaladda Axmed Madoobe uu ka wado magaaladaas uu xal u raadiyo. guddiga ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xukuumaddiisu ay u xil saaratay arrimaha maamulka Galmudug waa ay guuldareysteen kadib markii beelihii loogu talagalay inay shirka dib u heshiisiinta ay ka qayb galaan ay soo xaadiri waayeen gogol dhuusamareeb la dhigay. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xambaarsanaya guuldaradii ugu weyneed ee ka timaada dhanka maamulka Galmudug mar haddii beelihii uu soo magacaabay guddigana uu ka soo xulay ay diideen in shirkaas ay ka qayb galaan. dhanka kale shirka ka soconaya magaalada Hobyo ayaa wajigii labaad galay xildhibaano iyo senataro saameyn leh ayaana gaaray halkaas kuwaas oo adkeynaya shirka ka socda magaalada Hobyo. ugu dambeyntiina odayda ayaa laayay caruur uu adeer u yahay kuwaas oo ku noolaa deegaanka dhagax dheer ee gobolka Togdheer ee Somaliland. ninkan ayaa la xaqiijiyay in madaxa looga jiray isla markaana uu laayay 4 caruur ah oo uu adeerkood ahaa. ciidanka booliiska ayaa xaqiijiyay inay gacanta ku dhigeen oo ay xabsiga u dhaadhiciyeen. halka wararkaas daawadayaal idinkaga imaanayaan waa La Yaabka TV. iminkana wararka xagga dibadda. xiisadda gacanka Bershiya ayaa cirka isku shareertay kadib markii ciidanka kacaanka ee wadanka Iiraan ay gacanta ku dhigeen markab saliid siday kaas oo marayay gacankaas, isla markaana dooniyaha dheereeya iyo ciidan aad u qalabaysan oo Iiraaniyiin ah ay gacankaasi howlgal ka bilaabeen. arrintan ayaa la aaminsan yahay in ay xoojinayso xiisadda Mareykanka iyo sidoo kale Iiraan u dhaxaysa. ugu dambeyntiina toogasho wadareed iyo qulqulatooyin dhanka isirka ku salaysan ayaa ka bilowday gudaha wadanka Mareykanka kadib markii toogasho wadareedyo ay ka dhaceen Texas iyo sidoo kale Ohio. waxaa soo baxday cabsi xooggan oo laga qabo dadka cadaannimadu ay ku weyn tahay oo bartilmaameysanaya kuwa madowga ah iyo soo galootiga. dad badan ayaana walwal dareemay. guud ahaan daawadayaal intaas waxaa ku dhan warka idinkaga imaanayay La Yaabka TV. nabadgelyo.